Bismillahirrahmanirrahiim. Wacan oo wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka. Qodobada aan idiin haynana waxa uu waaweyn Israa'iil oo sheegtay in daanta galbeed ay tahay dhul lagu murusan yahay. Xoogga iska caabinta Falastiiniyiinta miyay bannaanka u soo bixi doonaan? Falanqeeyaha weyn Faysal Duwayri macluumaadka uu bannaanka keenay. Saldhigga Turkiga uu doonayo inuu ka sameeyo gudaha dalka Suuriya. Xog ku saabsan ayaan eegi doonaa. Waxaa raaci doona qodobo kale oo ay ka mid yihiin Maraykanka oo qiray weli inaysan ka guulaysan burburinta xarumaha ugu muhiimsan iyo gantaalada xoogga Xuutiyiinta dalka Yemen. Soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka falanqaynta caalamka. Waxaan ku hormarayaa saraakiisha dhinaca militariga ee gudaha dalka Suudaan ayaa u sheegay warbaahinta in iskahorimaad xoogan uu ka dhacay dhanka galbeed ee xaafadda Umudurmaan lagu magacaabo oo dalkaasi Suudaan ah. Dagaalkaas wuxuu u dhexeeyay dacmu sariic iyo ciidamada dalka Suudaan, waxaana la sheegay in dagaalka ugu adag uu ka dhacay dhanka galbeed ee suuqa Liibiya loo yaqaano ee xaafadda Umudurmaan ee dalkaasi Suudaan. Hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la isu adeegsaday isku dhacaasi oo saacado kooban ka socday ilaa iyo markii dambe uu ku baahay suuqa loo yaqaano Dahara. Haddii aynu eegno wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ninka lagu magacaabo Gideon Saaran ayaa shaaca ka qaaday war ka duwan warkii hore oo Israa'iil inay doonayso dhulboob inay ka samayso dhinaca daanta galbeed oo ay xoog ku haysato ama ay gumaysato deegaano ka tirsan daanta galbeed. Haddii aynu eegno arrinta Turkiga, Israa'iil iyo Suuriya, xaaladda bariga dhexe waxa ay u muuqanaysaa inay aad u sii kacayso xiisada u dhexaysa dalalka gobolka, waxa ayna gaartay marxalad cusub. Turkiga waxa uu xoojiyey saameyntiisa militari ee gudaha dalka Suuriya. Warbixino caalami ah waxa ay muujinayaan in Ankara ay qorsheynayso in saldhig ciidan oo dhanka cirka ah ay ka samaysato gudaha dalka Suuriya, gaar ahaan saldhigga T4 loo yaqaano, taasi oo horisay xiisada kala dhexaysa Israa'iil, waana midda Israa'iil ku qasabtay inay saldhigyadaasi iyo goobo kale ay gantaalo ku garaacdo. Dhinaca kale, dowladda Maraykanka ayaa si cad u xaqiijisay inaysan ku guulaysanin burburinta gantaalada xoogga Xuutiyiinta dalka Yemen. Wargeyska New York Times ee dalka Maraykanka oo ka soo xigtay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga inaysan ku guulaysanin suurtagalnimada inay burburiyaan nidaam difaaceedyada diyaaradaha droniska kuwa wax duqeeya iyo gantaalada Xuutiyiinta, kuwaas oo halis geliyey amniga guud ee Israa'iil.